markabkii adduunka ugu weynaayo magaciisa la yiraahdo The Icon of Seas ayaa badda dul mushaaxi doona bisha January sanadka dambe 2024 waxaana markabkani samaysay shirkadda maraakiibta ee laga leeyahay dalka Finland ee Royal Caribbean International waxaana uu qaadi doonaa rakaab tiradoodu ay dhan tahay 5610 qof iyo sidoo kale shaqaale tiradoodu ay tahay 2350 qof waxaana markabkani uu 5 jeer ka culays badan yahay markabkii Titanic ee degay sanadkii 1952 culayska markabkani waxa weeye 250,000 iyo 800 tan halka Titanic culayskiisu uu ka ahaa 50,210 tan kumanaan qof ayaa sii goostay tigidhada ay ku raaci lahaayeen markabka Icon markabkani waxa dhismihiisa la bilaabay sanadkii 2016 waxaana lagu waday markii hore inuu hawlgeli doono dhamaadka sanadkani 2023 warbaahinta dunida ayaa markabkani waxay barbar dhigaysaa markabkii degay sanadkii 1912 ee Titanic oo ay ku dhinteen dad ka badan 1500 qof markabkaasoo masiibadiisa lagu laray qoraah caan baxday oo dadkii rakaabka ahaa u sheegay nin ka mid ah shaqaalaha markabkaasi oo la odhan jiray Philip Franklin waxaana ninkaasi dadka uu ku yiri ka hor intii markabka Titanic aanu shiraacan ee aanu bilaabin safarkii dhimashada in xataa ilaahay aanu qarraqi karaynin Titanic laakiin wax waliba waxay isku bedeleen waqti kooban lama oga dunidu waxa awoodda markabkani cusub ee The Icon of the Seas ay ugu yeeri doonaan